sidaad uga dhex muuqan kartaa market jira waa su'aal anigu aan isweydiiyey sanad iyo badh meelaha ka hor markaan anigu bilaabayay as a freelancer graphic designer iyo web designer waana su'aal dadka inta badan ay weydiiyaan horta waxaan rabaa inaan idinkala hadlo difference between personal branding iyo company branding haddaynu ka hadalno horta personal branding dad badan baa ka aaminsan markaad samaynaysid personal branding inaad isi soo bandhigtid noloshaadoo dhan qofka wax kastoo adiga kugu saabsan inaad soo bandhigtid wax kastoo private inaad soo bandhigtid sida tusaale ahaan Kardashianka dumarka la yidhaahdo waan malaynaya dadka inta badan inay garanayaan laakiin ma aha dadku khalad bay ka fahansan yihiin adigoo sameynaya personal branding ayaanad u baahnayn inaad noloshaada wax badan kala sheergelisid dadka dad badan oo ka baqanaya jira inay personal branding samaystaan because of maaragta waxay isleeyihiin waa inaad noloshaada dadka usoo bandhigtid runtii ma aha aniga laftigayga maanta noloshayda wax badan kama soo bandhigo oo ahayn wax ku saabsan industriga ama waxaan ka shaqaynayo so personal branding xitaa saas u ahaan karaa hadda laga hadlo xagga company branding inkastay fiican tahay markasta inaad leedahay company branding haddana waxa fiican inaad ku support garaysid personal branding so personal branding wuxuu yahay marka ugu horeysa waxa weeyaan inaad u noqotid companygaaga wejiga companygaaga sida markasta la sheegan waxaa la yidhaahdaa dadka waxa u fudud inay connection la yeeshaan qof kale laakiin uma fududa inay connection la yeeshaan company oo maaragtay iska company jirta marka ma xuma inaad samaysid company branding way fiican tahay anigu laakiin sidaan aaminsanahay haddaad rabtid inaad ka dhex muuqatid market jira ama market lagu badan yahay waxa weeyaan inaad samaystid personal branding sidaan sheegay markii horena personal branding doesn't mean inaad noloshaada soo bandhigtid laakiin waxaad ka hadli kartaa industrigaad ku jirtid waxaad qabatid hawsha saad u qabatid dadkaad wax u qabatid waxyaalahaasaad ka hadli kartaa haddaad xitaa aniga hadda pagekayga soo eegtid waxaad arkaysaa uun wax kastoo shaqadeeda ku saabsan nothing to do with personal lifekayga marka anigu I would always recommend haddaad rabtid inaad ka dhex muuqatid market ama market cusub aad soo gelaysid inaad samaysatid personal brand hab adiga kugu fiican ee kugu habboon way ahaan kartaa xitaa inaad noloshaada sheergaraysid marka hab adiga kugu habboon oo kugu fiican I hope inaad ka faa'iiday please like and share. Assalamu alaikum.